waxaan arkayay dad markay afka xirteen magaaladii oo dhan ay leedahay coronavirus macnaheeda ma aha coronavirus sidii looga hortagi lahaa waayo bahashaan afka lagu xidhanayo ayadu ma ahan cudurkii bahashii waday ma ahan marka ayadana waxaan soo jeedinayaa in sida ugu habboon aan u wada qaadan karno qof walba maradu heli karo oo laga sameeyey in aan afka ku xidhan haddii dawladdu ay awood u leedahay ganacsadeenu ay raqiisna ugu keeni karaanna waa soo dhawaynaynaa in magaalada la wada keeno qalabkan ama gacmaha lagu nadiifinayo ama sanka aan ku xidhanayn marka muhiimadda maanta iyo fariinta aan maanta wadaa waxay tahay inaan ku dadaalno runtii nadaafad inaan ku dadaalno nadaafadda guriganaga inaan ku dadaalno nadaafadda jirkanaga inaan ku dadaalno nadaafadda maaragtay dariiqa aan ku noolnahay iyo dhulka aan ku noolnahay oo dhan gacmahana aan iska dhaqno anoo ku hadlayo codka magaca gabdhaha korkiiska baarlamaanka Soomaaliyeed anoo ku hadlayo guddiga doorashada dhameystirka codkiisa anoo ku hadlayo gabdhaha uga hadlayo waxaan leeyahay inta dhiminka dhan Allah u naxariisto inta muslim oo dhan Allah u naxariisto quraankana aan qabsano 104 wax kaga meel kasta joogno quraanka anigoo jaanis kaga faa'iideysanay waxaan rabaa inaan raado dadka Soomaaliyeed intii karayso awood u leh inay guriyooda ku hakato in caruuraha iyo dhalinyarada magaalada wareegaya in guriyooda ay joogaan in goobaha isboortiga la hakiyo in hay'adaha caafimaadka ama wasaaradda caafimaadka ama WHO tilmaamaha ay bixinayaan in la qaato taas waxay naga saacideysaa in xanuunkii oo yaraado runtii dalkeena waa dal baahi badan qabo adeegiisa caafimaadkan aad u hooseeyo runtii awood badan aan kula tacaalna ma haysano aad iyo aad waana isu ilaalinaa dadka Soomaaliyeed tira ahaan maynu gaarsiisnin meelaha wadamada kala gaarsiisan yihiin wadankeenu dawo ku filan ama dawooyin fiican ma laha oo waxaan sheegayaa lagula tacaalo waayo xanuunkani hadduu qofka asiibo waxyaalo keenaya waxa kamid ah hawada qofka qabsanaysa oxygen ma jiraan isbitaallo fiican oo ku filan ma lihin inagu waxyaalahaas oo dhan fiirinayna oo Ilaahay baryayna waa inaan taxadaraa annagu laftirkeena shirka aan shirayna maalmahan dambe si aan tusaale ugu noqono bulshada Soomaaliyeed waxay qayb ka tahay in aan hakad gelino shaqada aan wadnay marka waxaan ku baaqaynaa shirarka la isku imaanayo meelaha lagu sheekeysanayo hoteelada in la yareeyo dadkuna ay kala fogaadaan waxyaabaha ku badbaadinaya inaad gurigaaga ku hakato bulshadana aad badbaadiso qayb ayay ka tahay aan ula dagaalano xanuunka loo yaqaan coronavirus COVID-19 dhammaanteen inaan isku duubnaano shacabka Soomaaliyeed qof walba uu gaarsiyo qofka kale si looga hortago xanuunkan kuma dheeraarayo waayo wacyigelin badan la sameeyay laakiin waxaan u baahanahay TV-yada sida TV-ga qaranka raadiyaha in maalin walba si joogta wacyigelin looga bixiyo qof walba oo Soomaaliyana uu ku dadaalo sidii uga hortagi lahaa intuu u soo dhici lahaa oo la daweyn lahaa ka hortagu wuxuu ka wanaagsan yahay daweynta waxaan idinka codsanaynaa walaalayaalow nadaafadda ha lagu dadaalo socodka macna darrada ha la joojiyo guryaha ha la joogo waxa weeyaan faraha ha la iska dhaqo taabashada oo yacni faraha badan leh ha la joojiyo ha la is ilaaliyo waxa weeye taxadar ayaa ka muhiimsan in hadhowta laga daba tago walaalayaalow hadduu arrinkani nagu fido dawo ma hayno waxa weeyaan qalab looga hortago iyo qalab dadka lagula tacaalo ma hayno waxa kaliya la samayn karo waxa weeyaan muddadan ay socoto isxakamayntu inaad isxakamaysaan socodka joojisaan guryihiina ku ekaataan salaanta ha la joojiyo faraha ha la iska dhaqo ha la is ilaaliyo intaasaanu iskula dardaarmaynaa ilaahayna waa noo jeedaa waa idin sheegnay hadhowto haddii ay dhibitimaado calaacal wax uu noo tarayaa ma jirto walaalayaalow dawladdu waa dadaashay culimaadudiinku waa dadaaleen annagu waa annaga maalin walba idin hor taagan ha laga joogo ha la iska ilaaliyo inuusan cudurkani nagu faafin